يوتيوب صاحب ابلكيشن لو شقتك صاحب حقيقة markii la hadlo wuxuu dabool saxab baahiyooyin badan dhalinyarada u qabeen waayo dalka haduusan shaqo lahayn dad baa marka go'aansan saxab inay shaqo abuur sameystaan meesh ugu fiican waxay noqotay YouTube saxab marka in ay noqoto content creator wax problem ma laha saxab balse waxa lagu soo kala gudbinaa ayaa lagu kala duwan yahay waayo dad kasta oo create gareys kara maanta hada Gmail leedahay YouTube waa leedahay brother balse waxa jir saxab dad badan ku nagaadi dad badan ka buuxa daaqad mar ka baxay sababtoo ah dadka qaar ma fahansan saxab xogna kama haystaan wadada saxda waxa arkeen bas kaliya dad ku dhigan kadib ayaan way furteen dad saas u risii dhigaan hada markuu waxay maanay dadkaas lagu dhignaa inay markaas meeshaas danto kadib maxay soo bandhigaan waxa soo bandhigaan ma laha waxay noqon qofka markii lagu dhigo inay wax soo duubaan saadarta marka kuwaas waxay noqdeen kuwa ka dhacsan oo gar waayeen hadafka saxda ee YouTube-ka kuwa markuu xajir saxab wadada saxda qaaday hadana noqdeen guulaystayaasha ugu weyn YouTube-ka geyga Soomaaliyeed saadarta marka kuwaas marka waxaan ka ogaanay xog yar oo maanta qofka YouTube doonaya inuu content soo gudbiyo anfacayso waayo dad badan doonaya inay ka shaqeystaan YouTube-kaani balse waxay arkayaan dad badan kan jabeen waxa isleeyahay marka hadii qofka saas uu yahay ma haboon oo YouTube wax jira maahan yo dhalinyaro badan ayaa YouTube shaqooyinka ugu haray ayagoo shaqo $500 lagu qaadanay heesta ay ugu hareen sida maqaadan camal sida hooso ogaansho waa dadka YouTube ayagoo shaqooyin heestaan ka tagay shaqooyinkooda YouTube u gaay waxay arkeen ilmacaan oo dakhli fiican ka soo galayso neecaawna ku dareemaan balse ogow dadka ku dhiga neecaaw kuma dareemin waa dad daaqada ka baxa waa dadka marmar qaar la waaya ilaa ay dad marka isqabtaan arkaysid saaxiib xaqiiqadu waxay tahay wadada saxda inay muhiim tahay inay heshid si aad markaas hadafka u gaartid marka waxaan sameeyay saaxiib talooyin iyo fikrad yar aan ka soo qaaday ragaan guulaystayaasha u muuqda kuwaas ayaan jecesmantin ku waayo 2022-21 YouTube waxa arkaysa dad badan u soo biireen balse hadda ka dhaceen sababta ugu dhaceen wax kalmaan ma aqooni saaxiib wadada saxda hadii aad doonayso marka inaad hadda ku soo biirto YouTube ama hadii aad hore u lahayd balse aad ka dhacday saaxiib waxa ku wadaagaya waxaan ku wadaagayaa saaxiib talooyinka ugu macquulsan iyo fikrada ugu macquulsan ee dadkaas guulaystayaasha ah nala wadaagin si markaas aadna u guulaysatid oo hadafkaaga u gaartid xaqiiq waa ka mir dhali doontaa hadii wadooyinka raacad oo raggan ku sheegaan waa rag guulaystay oo wax qabsaday baraada saa darteed marka in ka saaxiib ku wadaagay inta ku wadaan ka hor laakiin hadii aad channel-ka cusub saaxiib subscribe nasar hadii aad hore jirteen like tuna wajigli share tuna saaxiibka u gaarsi ko Abdullah Jamal dadkii yaqaana way yaqaanaan dadka aan aqoonin waa YouTuber heesta 400,000 subscribe wuxuu ku helay ay soo dad aanan asoon la aanin saa darteed marka waxa isdhihi karaa marka wuxuu kamid yahay guulaystayaasha waayo qofka hadda inta badan YouTuber ay arki jireen Soomaaliyeed dadka ayagoo ku dhigan ayagoo lagu dhigan yahay saas ay kulkacsi jireen dad soo wici jireen waxa dhihi jireen saaxiib hay YouTube ama uu nidamsan yahay asgal amal isku qabsanaanay oo asgalna taasoo lagu kalkaasi jiray balse raggan ayagoon waxas qabanin heestana shaqooyin weyn sida astaan uu shaqeynay Abdullah Jamal asoo shaqooyinkaas ay YouTube imaaday saasaytan uu ku guuleystay asoo dad ku dhigin asoo lagu dhigin saadarta marka waxa isdhihi kara marka qofka heerkan gaar wadada soo mar asagoon korkiisa wax qabqabsi wax ka muuqanin oo wada nadiif ah ku imaa meeshaan waxa isdhihi kara marka waa mid mudan in lagu daydo wuxuuna kugu talinayaa hadii aad doonaysid in YouTube soo gashid fikirkaani qofka soo gali waxaan kula talin lahaa marka baad uu isugu sii sabay qana sida wax loo duubayo sida loo dhigreeyo barnaamijku uu duubayo nooc uu noqon lahaa waa sawirkiisa uu sii haysta exactly sababtoo ah qofkan ka duubaya waa qof aadan oo waxaan usan karaa saf buu gali karaa aroos buu gali karaayo bilba waxa guriga wallaah marka wax qurux badan oo qofku wax walba uu yaqaano hadii edit noqoto marka hadda inta badan dhalinyaradu waxay aad uga codaan xagga qalabka iyo waxyaabahaas marka koobaad waa inaad horta qalabkaaga aad haysataa wixii aad ku shubi lahayd wixii aad ku duubi lahayd iyo inta dhan marka inta aad haysatid waa caad wad iman kartaa waa inuu ku soo warinaata waxa aad doonayso iyo barta u socota laftirkeeda hadaan meesha u socotaan ogeynba aadiyad waxaan ku leeyahay 900 mawjuud qad imikeena qofku caan noqda aad buu fududahay aad buu fududahay laakiin se waxa ka horeeya caan iska noqday micnuhu ma sameynayso laakiin waa inaad sameysatay wax fiican oo deel guud xigiliyo lagu ixtiraamayo aadiyad dad tiraamad hebel baan ku dhigay inta wax kuriyay waa oo ku soo caanbaxaya way ka doo imanaysaa horta yidku ku siiso waa laba wad hadda xagga wanaagsan aad u adeegsato way iyana dadku wax soo gudbiso waxna laga faa'iido taariikhna ka tagto exactly taaswaami way ma hadda xagga kale aad u baydho way oo waxaan ku maalin qof aad ku dhiganaato maalin inaan waxaan ku laga oohiyo maalin qabiil lacaayo maalin reer lacaayo maalin magaalo iyo wada dhan la soo caayo oo labadooda duulay labadaas baad uu ku banaanta marka tii agida kula qurux badnaata ma inaad si sharaf leh bulshada aad ku dhex marto aad meesha doonta aad tagto waxa jirta dhalinyar gaalada jooga oo xaafadaha qarantii kareen exactly waa run wallah gadooba ay ka baqanayaan iyo hadal iska yiraahdeen marka labada wado way ku banaayihiin qofkii isaga jecel tudoonayo marka aan inta badan waxaan kula talin lahaa dhalinyarta
rabtay inay youtube soo bilaabaan marka koobaad dalama soo dhan waa badweyn wallahi bilow wad ku intaas uu gudubna Cabdul Jamaal sahanka xogaha waa youtuber Soomaaliyeed wuxuuna soo gudbiyaa saaxiib xogaha dalka iyo dadka inuu wax badan u faa'iideeyo sidaas uu cadeynayo oo noo sheegay youtuber kaani waxa laga yaabaa inaad taqoon loogadiisa agaratay haddaadan aqoonin badana wajiis ma soo muujiyo balse laba maalin uu soo muujiyay waa youtuber dhalinyaro ah runtii wuxuu ku siinayaa saaxiib fikradaha saxda iyo sida uu wanaagsan sababtoo ah yarkaani wuxuu joogaa heer maanta dhig kar uu guuleystay asoo dad ku dhigin wuxuu haystay 300 iyo wax la jiro oo subscriber ah heerkaas asoos wuxuu ku soo gaaray asoo dad ku dhigin asigan loo dhigin waxa dhigi kara markaasna sidaas la mid ah sidii Cabdul Jamaal waa guuleystay oo maanta loo baahan yahay inaa wadadiis raacid xitaa yarkaan Cabdul Jamaal wuxuu ugu daban yahay yarkaan badan wajiis soo muujinay asoo wajiis soo muujinin ayuu heerkan imaaday marka waxa dhigi kara yarkaan wuxuu kamid yahay guuleystayaasha youtuberka wuxuuna ku talnaa sidaan marka doonayso inaad youtuber faa'iido la noqoto war sida wax loo baaro sidoo kalena waa in hadafkaaga guud ee aad leedahay mowduuc kasta oo aad soo gudbinaysaa uu xiriir la lahaada oo laga dhadhansado tusaale aniga higsigayga ugu weyn ee YouTube ka leeyahay وين أفكارت قلدن بلشدة الصومالية دم والبوبهدين تيان صحي كراء كران كي صحو أفكارت إيه ثقافة الرسمي قاء هباش أنا يحكي فايدة يانا أنا كانوا سيدا أوجد مركب مدير أو دور برودة معلومات يحقق لجوانا يسوق بيو مالين أيام قضيتها الصومالية ده كهلا أنا جوار كقضيتها أن كهلا يا أوجال كي يحققها يسوق بيي إنك كشدا القاضنا يان. The biggest one Arimehena. Arimehena waa youtuberka ugu saameynta badan youtuber waayo Arimehena wuxuu youtuber ahay waqti aan youtuber badan jirin aniga xataa YouTube waqtiis waxba kama aqoon soma saadarta marka waxa la hanin dhul maray ayaa dhaayay Arimehena wuxuu soo maray saxaabada asaas u dheer waqtiis youtuber ahay ilaa imaanta heer wuxuu joogaa sidad soo saaro dad badan caabi dhan kasta sida asad xajiyo walaakis ah asiga caabi asaan bari editing asaan soo garab qaato maanta marka saadarta marka waa walaakis asleedin laakiin hadda si bartin dad badan arkaysin oo asii soo saaray wuxuu ku siinaa talo maanta ku caawinayso isdhihi karo qofkaan wax badan ayuu ku bedel karaa taladaan haddii maaragtay youtuberada Soomaaliyeed ee walaalahayga rag iyo dumar intaba aad talooyin aasiyo waxaan ilaa horta muhiimadda wax way kalsooni waayo haddii maaragtay yani qof walba oo kalsooni naftiisa uu ku haysto qof walba hadduu hadaf leeyahay uu rabo inuu hadafkiisa uu ka mir dhaliyo kale yani qof inuu kaaga mir dhaliyo ha ka sugin ya naftaada qanaano naftaada adag uu role model naftaada ku dhiirigeli hadafka aad leedahay sa u gaar leed laakiin hal mid hadafkaas adduunyo hadaf xun ilaaha kale xiyo laakiin wax qurux badan ay tahay talada wareys wax way kalsooni talada labaadna yani inay dadka ay dhibin inay dadka dhibin waxa kale tusaale ahaan dad baa jiro oo dadka yani ku dhibaayo waqti ahaan ku dhibaayo yani dad baa rabaan in mar walba wax loo sameeyo kale oo naftooda ku xiraayaan dad kale soo dadka ha dhibin qofka maaragtay aad wax ku sugaysan wax ku qabto kale isna naftirkiisa naf buu leeyahay nool waa daneesto wadan uu lahaan karaa soo wax walba maaragtay qof walaalkaaga ama walaashaada yani aad kaga baahatid wixii caawinaad iyo garab waa muhiim waa la isku caabiyaa laakiin naftaada bar inaa yani aan noqon kartid qof isaga meel iska soo saari kara tan ugu dambaysa siinaan waxay tahay ha noqonin xaasid xaasid noqon waxa ka wada waliba qof isku shaqatiin oo kale ha xasdin qof hadduu ku imaado oo ku dhaho waxaan rabaa inaan sameeyo يعني بحس قلبيجا أو صحدا داعد نمو كوجو جرتو ugu sheeg aduu dhibaato yani kaga wajihi karo ama hadii maaragtay uu faa'iido ka wajihi karo laakiin adiga oo qofkan waxa rabo inuu sameeyo hadii faa'iido u tahay ha ugu bedelna dhaadniyo waxaan wax kama keenaysa iska daa yani aad waxaan u badan tahay qof hadafkiisa ka hor istaagin ku dhiirigeli xaasida ku noqon sababta xaasida noqon waxay tahay waxa ka badaa qofkaas bari kamaalin meesha adiga aad joogtid meel ka sareyso uu gaari karaa wow yeah so kalsooni naftaada waxba qofna xaasida waxaa filayaa inaa ku caawisa tarada Arimehena runtii baaqoli boy waa wada taqaanisaa filahay waa dhalinyaro saameyn aad u weyn ku dhaxleh bulshada dhexdeeda hadda runtii xataa wuxuu ku galay xabsi ku galay YouTube iyo waxa arimahan saadartay marka heer wuxuu gaaray TV-yada qaata xirfadaha qaar asoo aqoon xataa TV-da qaata sababtoo ah waa madaali naftiis ku kalsoon wax asigoo soo diyaar ayuu ka qasulsiinaya awoodda soo leeyahay sidaa darteed marka wuxuu ku siinaa talo waayo asig horta YouTube mar dhow furtay wuxuu haystaa 44 milyan oo 74 milyan meelahaas uu maraa marka wuxuu laakiin asigoo saas ayuu wuxuu leeyahay saameyn aad u ballaaran dadka ayuu saameyn ku dhex leeyahay waxa la dhigi karaa waa talented waayo asigoo wax soo diyaar ayuu ka qasulsiinaa asigoo kubad ka soo baxay ayuu ka qasulsiinaa nin heebadaas leh oo social media saas u bartay xogaa u muhiimsan saas u fahmay wuxuu ku leeyahay sida tan dhacday horta maadaama ay weydiiso si aan lagu noqon karaa fudeeda ay tilmuugtahay horta waxa aan lagu noqon karaa inta badan dadku hadda waxa sameeyay ganacsiga sameeyay dukaan hadda maalin xirtay maalin furtid
macaamiisha waa sii luminaya aad iyo haddaad tiktoker tahay laakiin haddaad maalin ba dadka video soo bandhigto ad ultimo qofka waxaan isleeyahay sanad marka uu kusoo gabagabin karaa inuu magac sameeyo laakiin waxaa muhiim ah marka hore targetkaaga inuu magac ahaado laakiin haddaad magac oo lacag ka sameeyda istira weligaa ma noqonaysid waxaan filayaa inuu aad ku caabiyey Salmaan Maado klibkan uu muhiimsan uu ku sheegay waxay tahay joogteynta faa'iido ay leedahay joogteynku waa wax uu qiimo badan saaxiib haddii aad doonaysid inaad content creator noqoto loo baahan yahay qofka inuu sameeyo saaxiib hawa uu muhiimsan ayay kamid tahay joogteynta wax walba la joogtay waxay noqon wax qiimo leh saaxiib hatta diintu ka hadashay joogteynta saa darteed marka waa muhiim inaad waxa content creator aad joogtaysaa waa muhiim markasta dad ahaysa darteed inaad wax u joogtaysaa saaxiib si markaas dadkaas oo qancisid hadhow isbedel ay sameynaysaa marka content qafaysid 20 video agriso wal waxa inay kugu soo biri doonaan content kale saa darteed marka waa muhiim saaxiib in markaasi mar walba aad samaysid joogteen taladaan ku sii doonaa isna talada afraad waxa waaye wax hadaa shaqo qabanayso oo YouTube-ka shaqada markaasi wad ay hajoojin ceebtaasi aniga naftarkeeda ay haysata oo maxaa waaye hal maran video soo gelina 4 bilood ah maqnaana adan video soo gelina adan waa maqnaana micnaha aan laakiin ceebtaas waxa waaye cudur daaran waa haysto aniga mashquulkeeda iska badan dhintaas jaamacado iyo waxyaabo baqar shaqooyin badan ku jira adi ahaan laakiin hadaa waqti haysid waqtigiina haysid waxaan kula talaa mar hadaa soo gashid iska soo geli video iska soo geli insha Allah asaa markaasi faa'iido markaasi ummadina ay ku helayaan adina wuxuu noqonaa raad wanaagsan markaas ay ka tagtay saadartay marka intaas ay ugu hareynaa Salmaan Maado nagee qodob ku xigay waxaas dhigi karaa saaxiib qaas wuxuu kamid yahay guuleystayaasha sababtoo ah wuxuu soo gudbiyay saaxiib xoga ugu muhiimsan ee bulshada u baahan yihiin wuxuu ku leeyahay saaxiib dad baa tuugin brada ina qof tuugtay ma aha saadartay marka waxaas dhigi karaa saaxiib ina qof share ka tuugtid waa laga boon yahay sababtoo ah waa muhiim ina naftada qadarsid oo aad qof ka hoos tagin waayo content creator aad brada aday wax soo gudbinayso maahan ina aad qof tuugtid waa aday ina wax soo saaratid saadartay marka waa ina dadkaas qanacsatid qaysar marka waa dalxiise meelaha dalxiiska waxyaaba soo taga dadka ayuu xogaas soo gudbiyaa wuxuuna sameeyaa kale maada ama daalisa u taqaanid wuxuuna haystaa 300 iyo wax la jiro subscriber ah wuxuu ku sheegay saaxib 300 oo in loo maani saaxib share oo qof ku sameeyay in loo maaday asi creator u sameeyay dadka waxay jecleen uu raadiyay wuxuu ogaa dadka inay dalxiiska jecleen wuu tagay wuu soo gudbiyo xogaas runtii waxaas dhigi karaa waa mid madan ku dagasho waayo wuxuu sameeyay wax aan youtuberada sameeyay wuxuu sameeyay wada dadku loo soo jeedi karo saa darteed marka waxaas dhigi karaa taladiisna aad buu ku anficsan waayo waa successor wuxuu haystaa 300,000 dad asoo ku dhigin asan loo dhigin saa darteed marka wuxuu ku leeyahay sida tan aan qof kasta oo dhalinyaraayo imika jeclaan lahayn YouTube sameeyo waxaan ku dhiirigelinayaa waxa weeyaan waxaad ku fiican tahay samee يعني إن قف كلا كروشر جريو إنه قف كلا أو مجرد ساعة ويوتيوب كي كلا صوف ريستو وحبقول كي ببقول كم مدن هذيك واحد يرى تكون أكسنت هاي السماية وكل عليا يعني مركز دم بيسنا يوتيوب كده حيسا يعني وتكسر دحبر النساء واحد دتك تشعليهن دتك هاكو واحد ما كدب نوع حسب تارجت كسارسا بس بوم تطبق باكو واحد ما مركا وحن قف كستا كلا تنين هاي وما أنت تشعلان لهين يوتيوب سماية يعني واحد أضو تالنت تقول له هاي aad isleedahay wad ku fiican tahay un ka shaqee dadkan faraha badan leh showroadkiya waxaas ku sameynaya ama comment-ka aad ka dhaxbiyo waxaas macna badan kugu maxleen dadka qaar baa iyagoon YouTube-ka ku wanaagsanin YouTube-ka soo fadhiista qofka horta marka koobaad waa inuu ishelo wuxuu ku wanaagsan yahay dadka qaar baa injineera qaar baa dhakhaatiira qaar baa wax weeyaan problemaadka xaliya dadka qaar baa kamarada soo loo duuba ku wanaagsan qaar baa sawir qaadista ku wanaagsan yani marka koobaad waxaad ogaataa waxaad ku fiican tahay haddaad ogaatid waxaad ku fiican tahay waxa target ka saar haddaad ogaatid YouTube ku wanaagsan tahay waxa weeyaan talent ka aad leedahay soo bandhig adiga heli doono dad family atiin oo kugu xidhmo mar kasta ku daawado oo barnaamijyada iyo muuqaalada suga laakiin waxa weeyaan meel fog kuma gaarsiinayso inuu qof kale shurad ku sameeyo ama uu ku share gareeyo muuqaalada ama qof caana ma garanaysaa uu YouTube-kaaga ka soo muuqdo taas wallahi macna badan ma sameynayso yani inta yare ku daawatay imka aad qof caana u yeeratid inta yare ku daawatay de qofka markii kugu daawado maalinta dambe maxaad sameynaysaa waa inaad mid kale raadisatay laakiin haddaad barnaamij talent aad ugu leedahay aad soo bandhigto waxaad adigu jeceshahay dad baa kula jeclaanayo waxa way ka baranayo maalin walba every single day ku daawanayo kugu xidhnaanayo dabadeedna halkaas aad waxa way ka amba qaadaysaa inaad adiguna aad content cusub abuurto oo platform-kaagaasi ay wax tar yeelato dadkana waxa kula talinayaa dhalinyarada inay barnaamij wax tar la doortaan maadaama dad fara badan oo dhalinyaro waayeen caruur dad dhalinyaro yani cid kasta haday kugu xidhmayso waa inay ilaahay yani de word كلينا هكياله إن يرنا كابر تان مقارنة صادقكم إن تكون تداشين إن شاء الله بإذن الله كريم إلى أين يدوم ضفزية لما أنتي ضدك تعلنا يوتيوب يدا عصب فرطان كان بدك حدا
أصدق حجيو ومن مليونير ما عندنا مس مليون سبسكرايبر ويوتيوبر سامين كل حلقة بالشدة الحلقة صاحب ويوتيوبر مالكس بوستر سمية مالكس تنكي كبدن دعوات صوبته سامين ديس أي هركس كيسي كرتديس إيه هدوجس أي هركس كيسي سيدي هروك وشي أسنع تدنكم مدين لقوم مديري سادرت أمريكا تالنتيس أيو هركس كوجاري وأنا مهم إن أخاف نوع عمل أقوده تاع وهو كل هاي سيدة عايز سؤال شو قلت بس أقوي الدين إنه لايك الله يوكل بحال qofka markuu rabo inuu video soo gudbiyo wax uu miimsan oo ku zaala quality am soo lacag mise waa like oo inuu video fikradaas oo asal iimaanay inay wanaagsan tahay ugu horeen hor muu sheegin laakiin hadda inaan sheegaa rabaa right haddii aad rabto inaad channel horumar aan ka samayso kale sax kharash geli okay wax marka marka wax ya yani ku raaxaysanay lacagtaas يوتيوب إنا مالجسد وقصة حنتا صوبته هدي ما أنت أديكو يوتيوب كاجي قلبك استعمال هدو تهيسر لهن واحد هذا لهن كنتي وحوالا إن يدك وعجز دتك إن بورين ودريمة كدوم دتك عقله منع فكرة لبعض أكبر كرنا حتى يوتيوبر عالم كوكله على كل حال وحي مركز aan ka helo hadii qofkaas uu soo gudbiyo ama wax markaas attention isu jiidana oo kale hadii aan arko kadib ayaan linkiga ku dhufanaa فيديو ساسا كفيرنا ما هن يعني يوتيوب أو كحرنا مجرى. معناها ثمنك مهم دولي هاي ثمنك سامين تدخليه واي أسوأ قف عنه وعليه مركز عن يوتيوب سوقله وحر هذه قفك ثمنك سوجيته قفكاس أيو كحرمة ساعدرت مركز ميم إن مركز ثمنك قرصة سي قفكاس سوجيته هذا عن أما هذا قف إسكنر ملا وحكون سوجيتك تبعتها ثمنك هسه برو ويوتيوبر سومالي صاحب وحو كجري يوتيوب وقت بدن أصلا سيداس لميد وحو سو عبي دad badan صاحب حتى وحو ليه ويب سايت oo asna koorsooyin ku sugid koorsooyinkaas oo kamid ah naqo youtuber teesa wuxuu ka hadlayaa wuxuu experience u leeyahay waqti badan ayuu ku soo jiray xog badan ayuu ku fahansiiyay wuxuu markaas ku soo gudbinaa صاحب bounty uu miimsan loo baahan yahay youtube ina ka ogaad baraadi waayo waxa walba maxalliin focus point macnaha meel uu miimsan content sameey walba oo aad tahay in youtube uu boss ku hayo marka hadda aan isla fiirino maxay tahay sababta uu YouTube ahmiyada weyn uu u siinayo channelada cusub ama dadka cusub waxaan ognahay sanado ka hor inkastoo marba marka dambeysay soo dhimaysay markay noqoto helitaanka views badan in fursad ugu fiican ay haysteen dadka ugu subscribers ka badan laakiin hadda sidaasi wax uma shaqeeyaan hadda waxa muhiim ah oo ka muhiimsan haddii aad subscribers haysatid iyo haddii aadan haysanba labadani CTR iyo AVD oo markaas laga soo gaabshay click through rate iyo average view duration labadani sida ay isku la shaqeeyaan ayaan ku sheegayaa tusaale ahaan waxaad haysataa subscribers kun ama kun xitaa ka soo deg waxaad haysataa 100 qof oo subscribers ah يعني channel ayaad samaysatay 100 subscribers ayaad haysataa hadaba YouTube waxa uu sameeynaya marka 100 qof oo subscribers ka ku ah muuqaal marka aad soo geliso uma wada diraayo oo waxa uu u dirayaa ama uu tusayaa 15 meelahaasi kamid ah subscribers kaaga 15 kaasi qof marka ay muuqaalka ku soo ordaan oo ay click ku siiyaan waxay ka dhigan tahay muuqaalkaasi waxa uu helay click through rate fiican CTR fiican ayuu helay ayay ka dhigan tahay laakiin haddii 15kii uu u dirayba ay muuqaalkii ku dhufan waayaan oo uu thumbnailkii soo jiidan waayo oo uu cinwaankii soo jiidan waayo waxay ka dhigan tahay muuqaalkaasi optionka labaad ama qaybta labaad ee AVD-ga ah umaba gudbaayo waa muhiim marka ina adiga marka ku dadaashid in intaas heshid waayo qodobkan waa qodob muhiim haddii qof intaasoo subscribe haysto anoo intaasoo subscribe haysta haddii ka saameyn badanay runtii waxaas dhihi karaa waa mid muhiim ah clipkani oo saameyn weyn ayuu u yeeli karaa waxa maqal wuxuu ku dareensiinaa saaxib kuna qashaya dadka haysatid inaadan yeesin boqol qof ay haysatid inay mudan yihiin ina u mahadnaqid inay mudan yihiin dartooda ina wax u soo bastagreesid dartooda ina macnaha horusocod u sameeysid aadan ka caajisin aadan isdhiibin waayo wuxuu ku leeyahay dadkan ay wax ku ahay dadkan waa hantideeda laakiin wax ugu muhiimsani ma ahan dayaxow mar waan ka caajistay laha waxaan shaqo way ka weeyeen wax ku raadin way ka weeyeen wax intaan ugu kalifay mataqaaniin waa dad jecel dayaxow nimankan asxaabtan waxaan leeyahay xijiso ha iska fujin asxaab badaysa oo ku jecel waxaweyaan asxaabtaada ha isqaad qaadin oo ha isdhiganaan iga tahay marka iyaga jaceelkooda ayaa isii dhiirigelin runtii inaan hor istaagsanaado waqti kasta iyo saacad kasta intaas waxa weeyaan jaceelkooda marka ani dadkan waxa weeyaan saaxiib waa hantida kaliya aan haysto waa ilaaliyaa macnaha waa hantideeda hadday imaado macnaheedu waxay tahay waa dadka noloshiisa saameynta u badan ku leh waa dadka noloshiisa wax badan ka bedelay
adigu waxaa yeesaysaa 100 qof 50 qof saa darteed marka isku day laakiin 100 kaas inay haysto qancisid haddii 100 kaas qanciso waa waxa ah ina ka badan mudan tahay heli doontid saa darteed marka qofkan Maxamed Qadar ma ahan saaxiib qof dhalay dheels waayo waa qof macnaha guuleystay YouTuber ah sababtoo ah heer maanta wuxuu marayaa haduusan milyanka gaarin uu dhow yahay Maxamed Qadar waa hard worker sidii Asad Xaji ku sheegay Maxamed Qadar laakiin wuu ka saameyn badan kultigood inta soo sheegay asaga ugu saameyn badan yaraan maalintii at least 3 mar inuu wax soo geliyo 2 mar 3 mar uu wax soo geliyo si joogto ah ma ka caajisay isma dhiibay nafaga hadda kor wuxuu sheegay xataa 18 daqiiqo video uu duubay inay macnaha online ka ahay kama qoorsan isliimin uu soo laabtay macnaheedu waxay tahay wuxuu ku sheegaa dadkan ahaystid waa hanti ma ahan inay yeestid dadka inay badin inay yiriin waa muhiim inay qancis mar walba dartood inay xog u soo geliso Sadr Maxamed Qadar muxuu ku siinaa saaxib xog aad u xasaasi ah hatta TV asoo ka shaqeynay talented ah u go'ay saaxib inuu content creator noqdo YouTube-ka shaqadiisa ka dhigtay maalin kasta waxa update ka ah inuu ku soo gudbiyo adna waxa sheegay caajis waxa la joogtay ayaa qiimo leh hadwooga loo baahan yahay hamugaan saaxib kan cusub fi mar dhow soo bixi doona wuxuu ku dhameystiraa saaxib xargada waan company online ah waxna ka talbad ka taa okaalka xagga comment ay ku reebay lambar